بسم الله الرحمن الرحيم إلهي وما ذكره ما أنت وحنا جونا نادار نبتقلين وكاني runtii aad baan uga mahadcelinayaa wasiirka iyo xildhibaanada oo muddo soo shaqeynayay deegaanada inay u kurgaan xag amni iyo xag horumarineed maanta aan wada socono annaga xaaladda qiimeynayna dadkan deegaankan oo muddo dhowr 10 sano ahaa iman cadow ah u xirmaysnaa cadowgaas oo dadkii ka jaray taakuladii iyo gaadiidkii iyo socodkii barakiciyay maanta haddii dawladdu joogto wax ka soo horumari waa imaanayaan sida aragtaan ceelashii iyo wadooyinkii iyo horumarkii waa socdaa annagana haddaanu nahay maayirada tuutaha sita dhinaca kale tan bulshada waa u shaqeynaynaa oo dhinaca arrimaha gudaha iyo baahiyaha markii wax la qiiminayo inaan goobjoog ka noqono runtii aad baan uga mahadcelinayaa qolada midnimo oo maanta raashinkan dadkan ugu deeqday waxaan leenahay mar kasta ha loo soo kordhiyo dadkanina wixii baahidooda haddii dowlad noqon lahayd ganacsi noqon lahayd waxaan leenahay la soo gaarsiiyo in loo shaqeeyaa muhiima aad baan uga mahadcelinayaa wasiirka iyo xildhibaanka oo dadka la dareen ah oo runtii dhex maraya deegaanada colaadu ka jidho iyo deegaanada hadda dib dadku ugu soo noqdeen dadka deegaankana waxaan leenahay dalka lagu soo noqdo dhul waxa weeyaan la heli karin cimiladiisa cid kastana ammaanku wuxuu ka saaran yahay magaalo kasta inta soonaheeda amnigeeda iyo wixii ku hartay iyagu ka saaran yahay waana laga rabaa intaanu joognana waxaan rabnaa dadkiina la fariisano gudiyadii tuulada iyo gudoomiyada tuulada iyo nidaamkii aanu dhisno haddaanu maqanahay si shuruucda iyo dadku iyo kala dumayntu ay u shaqeyso intaasaan ku soo koobaya